madaxweynihii hore jamhuuriyadda Soomaaliland Daahir Rayaale Kaahin oo ku sugan magaalada Boorama ayaa maanta kulan ballaaran la qaatay hoggaanka dhaqanka gobolada galbeedka Soomaaliland. Kulankan ayaa ujeedadiisu ahayd sidii xal looga gaari lahaa hadalladii xanafta lahaa ee ka dhashay doorashadii dhawaan ka qabsoontay dalka Soomaaliland loogana waantoobi lahaa isla markaasina meel looga soo wada jeesto midnimada iyo wadajirka shacabka gobolada galbeedka Soomaaliland. Kulankan ayaa sidoo kale diiradda lagu saarayay sidii looga qayb qaadan lahaa horumarka ballaaran ee ka socda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. wadatashigan oo ka qabsoomay hoyga uu ka degan yahay magaalada Boorama madaxweynihii hore Soomaaliland ayaa waxa bilowgii hadalka furay isla markaasina ka warbixiyay ujeedada uu daaran yahay kulankani madaxweynihii hore Soomaaliland Daahir Rayaale Kaahin waxana uu yiri aad iyo aad bay idinku mahadnaqayaa salaadiin iyo cuqaal iyo waxgaradka kale ee kulankan maanta aan idinku yeedhay ka soo qayb gashay kulankaas oo nuxurkiisu ahaa qardoofooyinkii ka dhacay doorashada inaad ka midowdaan dantiina aad u noqotaan sida ugu wanaagsan dalka iyo ummadaba inaad u maamushaan oo maaragtaanay ayna dhicin in xisbiyada maaragtaan lagu dhexmilmo oo maaragtaanay nidaam qabyaaladed loo kala raaco nin kastaba ciduu dooranaya ha doorto laakiin hadalladii anugu waxaan dhibsaday berigii dhaweed hawada la isku marinayay kuwaasi inay soo afjarmaan baan ka wada hadalnay salaadiinta iyo waxgaradka waanan isla qaadanay waxaan u rajaynayaa insha Allah sidii ay ahaan jireen gobolkan awdal iyo hormoodkiisu inuu arintu ay ku soo noqoto midnimadiisii iyo walaalnimadii wixii intaa ka badan ee idin dhimanna hadduu Ilaahay yiraahdo mustaqbalka inaad ka tashataan danta Soomaaliland danta gobolada galbeedka intaba inaad u midowdaan. inta kadib waxa iyaguna hadalka qaatay Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dhawr, Suldaan Ibraahim Jaamac Samatar iyo Suldaan Xasan Xaddi Baade oo kamid ah hoggaanka dhaqanka gobolada galbeedka Soomaaliland iyagoona kulankani ku bogaadiyay madaxweynihii hore qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Daahir Rayaale Kaahin ayaa waxay yiraahdeen madashani oo ah gurigii madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Daahir Rayaale Kaahin oo maanta odayaashii duqeydii salaadiintii iyo magaranaysaayay awqaashi iyo garboodkii halkan galbeedka Soomaaliland halkan maanta runtii loogu yeeray halkan waxaan ku galnay shir ballaaran oo runtii midnimada ummadda reer Soomaaliland ummadda jaarasha ah ummadda gobolada galbeedka ah ayaa halkan nuxurkiisu runtii u ahaa dardaaran iyo magaranaysaayay waayeelnimo ayuu halkan maanta isugu yeeray waxaan halkan ka cadaynaynaa runtii madaxweynuhu dardaarankii uu nasiiyay oo runtii mid berigii hore waqtigii hore aan looga aqoonin hayn xaqan oo doorashooyinkii markii uu dambeeyay ka dhacay dalka ay saameyn ku lahaayeen runtii oo makarafoonadii iyo hawlihii halkan laga hadlayay dhibtoodii ay ahayd ayuu ka dardaarmayay lahaa wartii hore ina dhaaftay ta dambe ha la iska ilaaliyo anaguna haddaanu nahay waayeelka waa tu hore baan ogeyn bay ahayd waa aan aad ugu mahadnaqayno xasuusinta iyo magaranaysaa dardaaranka uu nasiiyay aad ugu mahadnaqayno xanafti makarafoon iyo hadalkiina runtii halkan aan iskaga garoonay oo ka wada hadalnay haddaan odayaashanahay gabagabadiina ay tahay in dantii guud iyo midnimadii iyo walaalnimadii dalka gudihiisa iyo dibadiisaba waxaanu ku dardaarmaynaa in garbaha la isqabsado oo sidii wax loo horumarin lahaa gobolka iyo area dhulka loo horumarin lahaa gobolada galbeedka loo horumarin lahaa dhinaca la isku qabsada baan aad iyo aad ugu dardaarmaynaa madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Daahir Rayaale Kaahin oo maanta martiqaad noo fidiyay qoorweyntii gobolada galbeedka Soomaaliland oo halkan maanta ku gorfeynay arrimo fara badan ayaa maanta waxaanu halkan shirkan jaraa'idada qabanaa nuxurkiisu yahay inaan wixii laga wada hadlay lagu soo gabagabeeyay aanu bulshada gaarsiin waxaad la wada socotiin in doorashooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ay xalaf badan iyo arrimo fara badan ka dhaceen oo qabiilnimo huwani taa ayana dad bulshada ka soo jeeda gobolada galbeedka Soomaaliland iyo dhammaanba jamhuuriyadda Soomaaliland aanu u sheeganaa nuxurkeegu waa taasaan isla qaadanay Soomaaliland dhammaanteedna in mar walba waa la hadalhayaa arrinka waxaan leenahay iyagana war doorashadii naga dhamaatay wixii ka haray hal laga baxo midnimana hal lagu wada shaqeeyo
annagu maanta waa naga idin caddaynana waxaanu caddaynanaa oonu u sheegaynaa ummadda inaan maanta midnimo iyo walaaltinimo lagu wada shaqeeyo kolka taladu hagaagto iyay danuhuna hagaagaan waxaan leenahay midnimada Somaliland nin waliba dhankiisa ha ka joogsado horumarka Somaliland nin waliba dhankiisa ha ka joogsado wadajirka Somaliland nin waliba dhankiisa ha ka joogsado waxaan leeyahay wixii dana inta ka dambeeyay dib aanu kaga hadli doonaa insha Allah maanta iyo maalin wanaagsan madaxweynihii hore oo halkan la jooga daahir riyaale kaahin shirkana noogu yeedhay insha Allah waa Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Somaliland magaalada Boorama.